duhur wanaagsan dhammaantiinba warka duhur ee raadiyo kulmiye maanta idin haya qodobadiisa waxa uu waaweyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta la kulmay saraakiisha ciidamada booliiska kalena hadlay sugidda amniga Muqdisho wasiirka maaliyadda oo shaaciyay in 60 maalmood kadib laga hortagay musuqmaasuqii dalka ka jiray ciidamada Puntland oo gacanta ku dhigay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo rag ay watay dawladda Masar oo ka digtay saldhigga military ee Turkiga ka dhisanayo magaalada Muqdisho Somaliland oo ka hadashay khilaafka hawada ee kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Hiiraan oo ku baaqay in la caawiyo dadka danyarta ah inta lagu guda jiro bisha Ramadaan boqolaal ruux oo ku waxyeeloobay qarax ka dhacay magaalada Kaabul iyo Mareykanka oo hubaynaya Kurdiyiinta Suuriya Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhur oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho warka duhur waxa soo saaray Cali Mahad Ibrahim Kadiye waa duhur Arbacada taariikhduna ay ku baagan tahay 13 bisha shanaad 2017 wada jir waxa idinku aqrinaya aniga Maxamed Axmed iyo Xawa Cabdulla Cubaydilul ku soo dhawaada warka oo dhameystiran ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta la kulmay saraakiisha ciidamada booliiska waxaana uu kala hadlay sugidda amniga Muqdisho wariyeen Axmed Maxamed Ibrahim ayaan ka wareysanay warkan وزارة دولة الصومالية مدنة حسن على خير يوم أنت وحكم الله قاتي كرياش الله أبني جاي بوليس الصومالية وقوة هيو تلاقي إنك بوليس الصومالية دراسي على كل حل واحد لي في بوليس الصومالية أيوة ترتجلين حين سوي ده أمني جاي مقالة مرتشو مع كم بيش بركسن رمضان لو بيجيرو ما حاجة شيء كلنا كرئيس وزراء أنا ماذا بوليس كمان يانو أو كجو عن هذا نقبل عمان وأنا استعلي إلى هذا واحد حافظ الله الله يوم وزاره حافظ الله الله ما جبت بلت هذا نحن عن كم قلنا شوية حاكم لها إن عيدنا بوليس كله قبنا مش بركة سنة رمضان إن سوقنا مع كيان أمريكا مقالة من الشيء بيحام سنة كله إنه بوليس وحاله قافلين إن الشعب الصومالي نفس الكل أيود اللي مرة صار ودوي كحرم الشعب كأخويا عندنا كجنين سنة كله وحاله وصل القاضي إن عيدنا أو هاي الحسنة عاصمة مقدشو يجينا نقدر نكمل مقالة مقدشو بس اللي baahan yahay iyagu ku dhooda iyo isku dhacay ciidamada dawladda Soomaaliya ay leeyihiin ay marka maanta waxa xirnaa qaybo kamid ah degmooyinka Xamar Jajab iyo Waabari ma ogna marka sababaha loo xiray qaybahaas cali ilaa hadda waxaan lagu wargeliyay sababaha loo xiray inay tahay wasaaraha dawladda Soomaaliya ee mudane Xasan Cali Kheyre in haatan la joogo akademiyada ciidamada booliska Soomaaliya jaraalka ahiye sababaha hadda lagu sheegay ayaa waxay tahay in arintaas darteeda wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa shaaciyay in 60 maalmood kadib laga hortagay musuqmaasuqii dalka ka jiray Cabdiwahaab Xuseen Muxyidiin ayaa soo koobaya faahfaahin la xiriirta wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ilaha dhaqaalaha dalka sare u kac ku yimid taasina ay suurta gashay kadib markii kormeero badan la sameeyay kuwa oo lagu dagaalamayo musuqmaasuqa maaliyadeed ee ka jira dalka waxaana wasiir Beyle uu sheegay in lacagta ka soo xirooto dekada weyn ee magaalada Muqdisho ay ahaan jirtay 150,000 oo dollar isla markaana sare u kac ku yimid oo ay laba jibaarantay haddana maalintii ay ka soo xirooto 300,000 oo dollar dekada lacagta ka soo baxaysa waxay ahaan jirtay ilaa 150,000 maalintii 150 marmar bay gaari jirtay 200 isku celcelis waxyaalo fara badan baa la isku dayay in laga bedelo oo la hagaajiyo dad kale yar kale bedelo qalabka wax laga yiraahdo qolooyinka ka shaqeeya la shiro ajnabiga sida taasi waxay markaa keentay inuu dhaqaalihii dekada ka soo baxay kordho maamul cashuuraha dadka laga qaado bay tahay ayaguna ku mahadsanyihiin inuu kordho imaga waxa ka soo baxa maalmahan waxa ka soo baxay 10 maalmood u dhameeyay mid walba 300,000 iyo in ka badan baa ka soo baxay marka 100,000 oo zaayida maalintii ayay noqotay waxyaalaha hirgeliyay in arinta lagu guuleysto dhowr arrimood baa kamid ah waxa kamid ah inaan khasaaraha iyo dhacdhaca joojino waxa kamid ah inaan qof wal oo lacag la siiyay baan inaanu account soo furo inaan diidnay in lacagkiis lagu sido
dadka gidaarada loogu tiriyo khasaara ka iman kara dhibaatooyin baa ka iman kara lacagtu dhibaatadeeda leedahay haddii lacag kiish ku jirtaad qaato dhibaatadeeda leedahay everywhere you go meel walba xukuumadda Soomaaliya ayaa horey u shaacisay in ay la dagaalamayso al-shabaab musuqmaasuqa ka jira dalka iyo sidoo kale saboolnimada waxaana ay tani bilow ka tahay waxyaabihii xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagula dagaalamayo ciidamada Puntland ayaa gacanta waxay ku dhigeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxay iyo raggii watay wariyaheena Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo soo diray ciidamada amniga Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari ayaa u soo ragasay howlgal qaatay dhowr saacadood oo ay ka sameeyeen gudaha iyo daafaha magaalada Boosaaso inay gacanta ku soo dhigaan gaari sidii waxyaabaha qarxa iyo raggii saarnaa xogtan oo saraakiisha ay ka warhayeen sida ay sheegeen xubno ka tirsan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bari waxay sheegeen in kooxaha falalka ammaandarida ka geysta deegaanada Puntland ay qorsheynayaan in qaraxyo ismiidaaminna iyo kuwa toos ay ka geystaan gudaha deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso isla markaana maanta u soo ragashay inay gacanta ku soo dhigaan gaarigaasi lagu siday fuustooyin ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa daliska qaybta booliska gobolka Bari oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso goobta lagu soo bandhigayay raggaasi iyo qaraxyada ay sigeen waxay sheegeen inay faahfaahin dhab ah ay warbaahinta siin doonaan ujeedada dhabta ee ka dambeysay raggaasi iyo meesha uu ahaa bartilmaameedka tooska ah oo ay la rabeen qaraxyada ay ka damacsanaayeen inay ka geystaan magaalada Boosaaso dadka deegaanka magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in saraakiisha ay soo wargeliyeen qaraxaasi oo saarnaa gaari dhayna oo ka yimid dhanka buuraha waxaana arrintan ay ku soo deegnaysaa toddobaad kadib markii fuustooyin dhowr ah oo siday waxyaabaha qarxa ciidamada Puntland ay ku qabteen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ammaanka magaaladaasi ayaa aad loo xoojiyay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo wili ay jiraan cabsiyo xoogan oo Puntland ay ka qabto in kooxaha falalka ammaandarida geysta ee dagaalka adag kula jira Puntland ay qaraxyo ka geystaan deegaano ka tirsan deegaanada Puntland Cumar Maxamed Soomane idaacadda kulmiye Garowe dowladda Masar ayaa ka digtay saldhigga military ee Turkigu uu ka dhisanayo magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Aweys ayaa eegaya faahfaahinta safiiro iyo diblomaasiyiin ayaa ka digay khatarta ka soo socota qorshaha Turkiga ee saldhig military uga dhisanayo Soomaaliya waxaana ay shaacay ka qaadeen in qorshahaasi uu handadayo amniga qaranka dalka Masar iyo kuwa Carabta safiir hore oo Masar ugu qaabilsanaa arrimaha Afrika ayaa sheegtay in joogitaanka Turkiga Soomaaliya ay tahay khatar ka dhan ah dowladda Masar waxaana ay ku adeeysay in ay maalgeliso kooxaha argagixisada Masar ayaa ku hanjabtay in ay jiraan ciidamo dhinaca dhulka oo soo dimaha ilaaliya waxaana Masar oo ka baqdin qabta Turkiga ay sheegtay in indhaha lagu hayn doono qorshaha saldhigga military ee Turkiga uu ka hirgelinayo Soomaaliya Ahmed Xujaaj oo isagu ahaa kaaliyihii hore ee wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay in goordhow isbeddel lagu sameyn doono hoggaanka ciidamada dalka Turkiga waxa uu sidoo kale uu ifiyay in Turkiga saldhiggaasi inuu ka hirgelinayo Soomaaliya uu ogolaasho uga haysto dowladda Soomaaliya Turkiga ayaa dhawaan shaaciyay in madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu furi doono saldhiggaasi military oo laga hirgelinayo meel u dhow garoonka Muqdisho ka oo lagu tababari doono ciidamada qaranka Soomaaliya waxaana la leeyahay 2015 waxaana dhismaha saldhiggaasi ku baxay lacag dhan 50 milyan oo dollarka Mareykanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xaqiijiyay in saldhiggaasi dhawaan la furi doono maamulka Somaliland ayaa ka hadlay khilaafka hawada ee kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya wariyaheena Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan Hargeysa ka soo diray wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland ayaa sheegtay in khilaaf soo kala dhaxgalay heshiiskii hawada ee u dhaxeeyay Soomaaliya kuwaas oo sheegay in ay baalmareen mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo marar hore ay ku heshiiyeen sidii loo wada maamuli lahaa hawada Soomaaliya wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland waxa ay sheegtay in hawadeeda ay maamulan doonto haddii dowladda federaalka Soomaaliya lagu wareejiyo hawadii dalkii la isku oran jiray Soomaaliya oo ay Somaliland sheegtay inay ka gooday Farxaan Aadan Haybe wasiirka duulista iyo hawada Jamhuuriyadda Somaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in haddii Soomaaliya ay ka waantoobi weydo qorshaha ay doonayso inay kula wareegto hawada Soomaaliya ay Somaliland maamulan doonto hawada xuduudaheeda ku teedsan hadday dhacdo in lagu wareejiyana maadaama iyaga dawlad ahaan loo aqoonsay maanta ay dhacdo oo ay wixii xaq ay lahayn xitaa isticmaalaan uga tagnay waxay noqonaysaa Somaliland talaabooyinka qaadaysa way wacdi ilaa kala gorgortan kala galeysana ma jirto hawadeedana way awood bay u leedahay inay maamulato taasina waxay keenaysaa khalkhal ku dhaca mandaqada oo dhan
umana fiicna waxa xalku wanaagsan waxa weeye in la wada hadlo xukuumadda Soomaaliland waxa ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ka baxday heshiisyo hore ay ula gashay dawladdii hore ee federaalka Soomaaliya kaasi oo ahaa in si wada jir ah hawada loogu wareejiyo marka ay wareejiso hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan hawada ee ECO xukuumadda Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa ay hore uga wada hadleen hab maamulka hawada dhulkii Soomaaliya kaasi oo muddo 26 sano ay maamuleysay hay'adda qaramada midoobay sidii ay u soo ceshan lahaayeen hab maamulka hawadaasi iyadoo si wada jir ah u maamulayaan Soomaaliya iyo Soomaaliland isla markaana xafiisyo laga kala furayo magaalada Hargeysa iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho intay ay ka wada xidhan lama soo xidhiidhata anaga may oranin anagoo u hanweyn oo isla dawladda ninka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa farmaajo ala laqal waxay bedelaysaa ama wixii hore akhriyaysaayoo tixraacaysaayoo ay wax kale ku korinaysaa wadiiqad wanaagsan oo horumar u horseeda iyo mandaqada nabad iyo amni iyo wada noolaansho waxaan filayaa waxyaalaha imika ay sameynayaan waxa nooga muuqata waxaan iyagana dan wahay anagana dan wahay udan ah ay ka weynay hawada gacanta ku sii hayso oo isqabsigaas iyada u dan yahay marka waxaan lahaa war xalku waxa weeye ama aan isku diido ama aan sheelayaan miis wada hadal isugu nimaado xukuumadda Soomaaliland waxa ay sidoo kale sheegtay in ay diyaar u tahay in si wada jir ah loo maamulo hawada Soomaaliya haday noqoto dhinaca Soomaaliland iyo Soomaaliya balse aanay cid gaar ah maamulin hawada Soomaaliya taasi oo ay sheegtay in dana gaar ah ay u fulinayso kolba cidii lagu wareejiyay hawadaasi Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku baaqay in la caawiyo dadka danyarta ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan maxamed cabdi sanay ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan ee dhinaca arrimaha bulshada Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa sheegay ganacsatada magaalada Beledweyne iyo cid kasta oo haysata looga baahan yahay inay caawiyaan dadka barakacayaasha maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ka maamul ahaan iyo ganacsatada iyo dadka Ilaahay wax siiyayba in aan u soo jeesano marka bishaan soonka ah oo 10keeda hore naxariis ah 10ka ku xigana dimi dhaafa 10ka ugu dambeeyna naarta la isku xoreeyahay in aan u soo jeesano in dadkaas aan gacan qabano in reerhiina isku tashadaan ganacsatadeena ay isku tashato oo dadkaas mas'uuliyadooda aan qaadno oo aan inta ka kari karno Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa ka warramay dhibaatooyinka ugu daran ee xilligan haysata dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Beledweyne dhibaatada ugu daran waxa waa dadka horta hooy ma haystaan waa barakacayaal oo ay diidii waa aragteen meelaha ay degiin waa aragtay hooy ma haystaan biyo nadiif ma haystaan caafimaadkii waalidka oo jadeeca iyo cudur badan iska jiro yani daawo la'aan waa jirtaa mid ugu darnaad waxa waaye oo xagga soonka aan ka hadlayno cunto ma heli karaan oo saddexda waqti waa xataa dadan hal waqti heli karnaa saddexda qof binaad waxa laga yaabaa inuu meelaha oo hal waqti hela laga yaabaa laakiin waxaan dareemeynaa xataa hal waqti dadan heli karnaa marka dad dhibaatooyinka aad u fara badan tahay laakiin meelaha ugu daran saa sheegtay hooyiga laga saacido qofka binaadka jiifka ugu daran hooyiga laga saacido rooba xil roobeeda lagu jira laga saacido biyo nadiif laga saacido maacuunta laga saacido marka dadkaas wax alaal wixii binaadam u baahan yahay dhan u baahan yihiin magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa xilligan ku sugan qoysas hore uga soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka waxaana xilligan haysata duruufo dhinaca nolosha maxamed cabdi sanay idaacada Kulmiye Beledweyne warka duhur ee radio Kulmiye ayaad dhageysanaysaan qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray ayaa gilgilay degmo muhiim ah oo ku taala magaalada Kaabul bartamaheeda waxaana ku dhintay 80 ruux halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale qaraxan oo ay saraakiishu ku sheegeen in ay awoodiisu weyneed ayaa ah mid kamid ah qaraxyadii ugu weynaa ee soo maray caasimadda Afghanistan ila wareedyo ayaa sheegay in qaraxa ismiidaaminta ah uu ka dhacay meel u dhow fagaaraha Sanbaq la yiraahdo oo ku taala ama ku yaala degmada 10aad ee magaalada Kaabul waxaana u dhow xafiisyo dawladdu ay leedahay iyo safaarado shisheeye ma jirto cid durba sheegatay mas'uuliyadda weerarka afayeenka Taliban Sabihullah Mujahid oo la hadlay Al Jazeera ayaa sheegay in ururkiisa uusan weerarka ku lug lahayn booliiska iyo saraakiisha caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka ay ku dhinteen 80 ruux ayna ku dhaawacmeen in ka badan 350 kale waxaana suuragal ah in tirada khasaaruhu intaa ka bato dhibanayaasha ayaa intooda badan waxa ay u badan yihiin muwaadiniin u dhalatay Afghanistan
meesha uu weerarku ka dhacay waxa ay ka mid tahay meelaha ammaankooda aad loo ilaaliyay caasimada Afghanistan. Wasiirka arrimaha dibadda Germany Sigmar Gabriel ayaa sheegay in qaar ka mid ah shaqaalaha safaaradda Germany ee Afghanistan ay dhaawacmeen, ilaaladii safaaradda qaarkoodna ay dhinteen. Mas'uuliyiinta safaaradda Faransa ee Kabul ayaa iyaguna sheegay in burbur uu safaaradooda soo gaaray balse ma sheegin khasaaraha shaqaalahooda gaaray. Laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda Japan ee Kabul ayaa sidoo kale dhaawac fudfudud uu soo gaaray. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ereyada ugu kulkulul ku cambaaray weerarka waxaana uu sheegay in la beegsado shacab aan waxba galabsan. ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa bilaabay inuu hubi diro dagaalyahanada Kurdiyiinta Syria ee si ay ula dagaalamaan dagaalyahanada Daesh ee ka dagaalama waqooyiga Syria. Pentagon-ka ayaa talaadadii sheegay inay geynta hubka Syria ay bilaabmi doonto si caasimada Daesh ay ku leedahay waqooyiga Suuriya looga saaro, waxaana sidoo kale ay sheegeen in magaalada Raqqa ay doonayaan in dhaqsi looga xoreeyo dagaalyahanada Daesh. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilowgii bishan meel mariyay hubsiinta dagaalyahanada YPG ee ka dagaalama wadanka Suuriya, laakiin Turkiga ayaa ka carooday. Pentagon-ku waxa uu dagaalyahanada YPG ku magacaabay inay yihiin ciidamada kaliya ee ka saari kara Daesh magaalada Raqqa. Ma jirto falcelin ka timid Turkiga oo la xiriirta hubka Mareykanku Kurdiyiinta Syrian uu ku wareejinayo. guud ahaan war wixii dalka dibadda naga soo gaaray oo duhurnimada radio kulmiye Muqdisho aad kala socoteen qiyaari waa naga inta ciidii warka iyagu dhaafay waxay dib uga heli karaan baraha internetka ku leenahay radiokulmiye.com iyo weheliya.com. dhageystayaashana jooga magaalada Caado Radio Hobyo ayay waa magaalada Gaalkacyo Radio Hobyo ayay naga dhageysanayaan, magaalada Caado Radio Cadaado, magaalada Jowhar Radio Asal. dhageystayaashana jooga wadanka Mareykankana waxay naga dhageysanayaan Kalay FM 101.7 MHz. tan iyo kulanti dambe nawaday.